kulanti wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkeennii falanqaynta wararka iyo warbixinaha dhinaca dunaasiyadda iyo wararkii ugu dambeeya dunida waa mar kale iyo wararkii ka gaan caalamkan daawadayaasha idin keeni jirnay annagoo kaloo wada soo rarna warar iyo waxo qodobada aad ku daawan doontaan wararkeena waxaa ugu waaweyn hogaamiyihii hore ama xogiyihii guud ee hore ee qaramada midoobay Kofi Annan oo geeriyooday iyo taariikh nololeedkiisa iyo caalamka oo si weyn uga hadlay geerida Kofi Annan dalka Mareykankuna wuxuu ku dhawaaqay in Shiinuhu uu tababaray cutub ka mid ah ciidamada cirka iyo gantaalo casri ah oo loogu talagalay in lagu weeraro dalkaasi Mareykanka isla markaana waxay ka digeen in Mareykanka iyo Shiinuhu isku diyaarinayo inuu Mareykanka daandaansado dhanka kalena daawadayaasha qiimaha leh dalka Eegaana waxay ku dhawaaqeen kordhaweyto inay soo saareen gantaalo diyaarado iyo waliba maraakiib dagaal oo casri ah isla markaana ay soo bandhigi doonaan maalinta ciidamada qaranka ay u dabaaldegaan 22 bishan dalka Sweden gabadh muslimada ayaa ku guuleysatay maxkamad kolkii shaqo loogu diiday kadib markay diiday inay gacan qaado dadkii ka qaadayay waraysiga dhinaca shaqada sidoo kalena daawadayaal waxaan kaloo idin haynaa dhacdooyin yaab leh oo ka taagan ama dhacdooyinkii dalalka Mareykanka iyo Turkiga u dhaxeeyay iyo muuqaalo yaab leh oo qosol badan ayaan idin haynaa oo dadka Turkiga ay sameynayaan dabcan waa 19 bishii 2018 kol kale barnaamijkeena falaqaynta iyo dunida wararka dhinaca dunaasiyad aan ku bilaabay isla markaana aan ugu horeysiiyay dalka Qatar ayaa waxa uu sheegay in ay awoodi diideen dadka muslimiinta ee reer Qatar in ay xajaan sanadkan kadib markii ay sheegeen in loo diiday dadkaasi inay galaan dalka Saudi Arabia isla markaana la adkeeyay qaabkii ay dadkaasi xajka u soo gudalahaayeen madaxa hay'adda dhinaca xuquuqul insaanka dalkaasi Qatar ayaa waxa uu bartiisa Twitterka ku soo qoray in dalka Qatar ay dadka reer Qatar iyo dadka degan ee muslimiinta dalkaasi ay gabi ahaan baysan gudan sanadkan ayuu yiri ama sanadkii labaad gudashada mid kamid ah acmaasha waaweyn ee islaamka Abdul Al-Ka'bi waxa uu sheegay oo hogaamiyaha hay'adda la yiraahdo Qatar National Human Rights Committee ayaa sheegay in dalka Saudi Arabia ay gacmayn xoogan ku hayeen ogolaansho yar oo ay siiyeen oo ah buuri fursad kooban oo dadka reer Qatar ay ku xajii karayeen taasoo ahayd markii horeba tiro aad u yar oo ku tilmaamay inay ahayd wax ka yar 1500 oo ruux sidoo kalena waxa dawladda dalka Saudi Arabia dawladda dalka Qatar hadalkeeda ku soo beegmay iyadoo dalka Saudi Arabia wargeyskooda ka soo baxa uu dhawaan soo qoray wargeyska loo yaqaano wargeyska maalinlaha ee la yiraahdo Al-Yawm Al-Ukas uu soo qoray ciwaan sheegaya in uu dadka reer Qatar ku socdo oo ah in aad afgambidaan xubnaha magacyada Xamed Wataba leeydi iyo inaad weydaan baa leeydi hooyga eebe inaad ku suubaadaysataan wararkaas ayaa waxa isagana aad la soo dhaxmarayay wakaaladaha wararka ama dhinaca warbaahinta bulshada ee dalkaasi Qatar ayadoo dadka reer Qatar ay aad uga caroodeen sawirka la dul saaray ciwaanka la siiyay ciwaanka ayaa wuxuu ahaa mid xagga hore la soo dhigay oo leeyri reer Qatar waa inay kala doortaan aqalka alle iyo reer Axmed oo la jeedaan markaasi dhowrka nin ee magaca Xamed wata uu kamid yahay Amir Xamed Al-Thani iyo Sheikh Hamad bin Khalifa Al-Thani iyo waliba kii hore loo tiray Sheikh Hamad bin Jassim Al-Thani waxaana ay sheegeen in hadii dadku ay iska tuuraan reeriyada la sii doono baa leeydi ogolaansho iyo galangal ay ku galaan baa leeydi dalka Saudi Arabia halka nagala socotaan warfadhi media warkii ugu dambeeyay iyo warbixinada dhinaca diblomaasiyadda wadasha qiimaha leh ayaan wali bartanka kaga jirnaa caalamka dhan ee lamaane muslimiin ah oo dalkaasi Switzerland ku noolaa ayaa loo diiday dhalashada dalkaasi kadib markii la sheegay inay gacan qaadi diideen ruuxii ama qayb kamid ah saraakiishii ka qaadaysay waraysiga lamaanahan oo muslim oo doonayay inay helaan dhalashada dalka Switzerland ayaa loo diiday kadib markii gacan qaadka ay ka diideen xubno markaasi ka qaadiyay waraysi ku saabsan go'aanka gaaristooda in la siiyo dhalashada waxay go'aankaas xaqiijiyay xubno ka tirsan kuwa iyagu garsoorayaasha aha ee doonayay in ay dadkaasi waraysiga ka qaadaan lamaanahan ayaa waxa su'aalo ku saabsan muwaadinimada ay dalbadeen la weydiiyay dhowr bilood ka hor waxayna dhibaato ka mareen jawaabihii su'aalaha quseeya jismiga kala duwan maalmo ka hor ayay ahayd markaasi ay soo baxaysay ama bilowin ka hor bay markay soo baxaysay in dawladda dalkaasi Switzerland ay doonayso inay adkayso shuruucda lagu helayo dhinaca dhalashada ee dalkaasi Swiss
maamulada Switzerland ayaa sheegay in dadka doonaya in muwaadiniinta ay ka noqdaan wadanka ay dhex galaan bulshada Swisska sidoo kalena ay xishmeeyaan waxay ugu yeedheen sharciga wadanka. Qoyskan ayaa sheegay in aysan soo bandhigin waxyaabaha iyaga qaaska u ah kuwaas oo ay warbaahinta maxalliga ah ay sheegeen inay ka soo jeedaan waqooyiga Afrika. Duqa magaalada Lusani Grogi Chnon ayaa wakaalada wararka AFP u sheegay in xorriyadda diinta ay ka mid tahay sharciyada wadanka balse ma aha buu yiri in dhaqamada diinta ay ka sareeyaan sharciga. Mas'uuliyiinta ayaa sheegay in lamaanahan aan la weydiin wax ku saabsan diintooda inkastoo ay muuqatay mid aan lahayn hadalkiisu sida ay ku warantay warbaahinta maxalliga ah oo sheegay in la weydiinayay wax kasta. Saraakiisha ayaa si adag uga hadlay in aan loo doodin wax la xiriira in aan loo diidin wax la xiriira diintooda balse xushmad la'aantooda ku aadan sinaanta jinsiga loogu diiday sharciga. Pierre Anthony Helbert oo qayb ka ahaa guddiga wareysiga la yeeshay lamaanaha ayaa yiri dastuurka iyo sinaanta ragga iyo dumarka ayaa ka sareysa mayal adayga indhahala ayuu sheegay ninkaasi asagoo markaas ku tiqtiqsanayay dadka muslimiinta lamaanaha muslimiinta ee diiday gabadhuna waxay diiday inay gacan qaado rag halka ninkuna uu diiday inuu haween gacan qaado. Ma aha markii ugu horeysay ee diidmada gacan qaadka ama salaanta ay muran ka dhaliso dalka Switzerland. Sanadkii 2016 ayaa iskuul ku yaala dalka Switzerland laga eriyay laba wiil oo muslimiin ah oo diiday inay gacan qaadaan macallimiinta haweenka ah kadib markii la sheegay in ay saf ka maraan salaantooda. Sheekada ayaa dhalisay buuq keenay in qoyska laga joojiyo qaadashada dhalashadii dalkaasi. Dalka dariska la Switzerland ee Faransiiska ayaa haweeney u dhalatay dalka Algeria looga diiday muwaadinimada dalkaasi kadib markii ay diiday inay gacanta ku salaanto sarkaalkii wareysiga ka qaadayay intii lagu guda jiray xafladeedii muwaadinimada waxayna ku gacan sayday inay gacan qaado. halkan nagala socotaan warfadhi media iyo wararka ugu dambeeyay warbixinada Cabdulnasiid inteena ka bixin gacan qaadkan gabadh iyadoo reer Sweden oo muslimada ayaa iyadana waxa ay heshay magdhow kadib markii ay ku gacan sayday toddobaadkii hore in ay salaanta ka qaado ninkii ka qaadayay wareysi ku saabsan dhinaca markaas shaqo ay ka buuxsanaysay goobo kamid ah goobaha shaqooyinka dalkaasi ama mid kamid ah kambaniyada ama shirkadaha dadka shaqaaleysiya dalkaasi Sweden. gabadhan reer Sweden ayaa waxa ay sheegtay in tan iyo intii maxkamaddu ay go'aan ku gaadhay in Farax Al-Haji 24 jir la siiyo lacag gaaraysa 40,000 oo crown oo lacagta Sweden ah una dhiganta $4,366 oo lagu magacaabay inay tahay cawaaqib xumo ama dhacdo xun oo fool xun oo midab kala sooc ah oo loogu geystay baa leeyahay iimaanka gabadha ay aaminsan tahay intii lagu guda jiray wareysiga shaqada loo xukumay ama maxkamadda u xukuntay. gabadha waxay tiri markii maxkamadda lagu dhawaaqay waxa ay soo gaaray way tiri boqolaal message ah ama fariimo ah oo markaasi hanjabaad cay iyo aflagaadooyin dhinaca xataa galmada ah oo la geysanayo waxayna u sheegtay TV-ga la yiraahdo Swedish State Television ama SVT Al-Haji in ay soo gaareen in gaarisa 500 oo qoraal oo kuwaasi comments ama waxa loo yaqaan afkaar oo dadka badankooda ay ku caayeen halka ay sheegtay in dad koobanna ay markaasi ay support gareynayeen ama ay taageerayeen gabadha. waxaana tiri markii aan arkay dadka hadalkooda wanaagsan ama dad kamid ah kuwa aniga taageersan hadalkooda waxaan go'aansaday in halkii qoraal ee aflagaada iyo hanjabaad halkii qoraal bay tiri wanaaga bay tiri uu ka wanaagsan yahay 10,000 oo aflagaada iyo hanjabaad sida daraadeedna waxaan iska dhiga maray bay tiri waxyaalaha xun ee dadku sheegayaan. sidoo kale waxa hadalada loo soo qoray kamid ah gabadhaasi inay ku noqoto bariga dhexe oo ka timid asal ahaan bay yiraahdeen balse gabadhan ayaa ku dhalatay dalka Sweden waana gabadh muslimada. waxay sheegtay Farax in markii ay sameeysay wareysiga shirkadda Uppsala ee galbeedka Sweden ay diiday in ay markaasi gacanta u taagto ninkii sida daraadeedna ay madaxa ka salaantay balse uusan ku qancin sidaasi sida daraadeedna uu shaqadii ugu diiday. halkan nagala socotaan wararkii ugu dambeeyay iyo warbixinada dhinaca Cabdulnasiid. dabada qiimaha leh dalka Iran ayaa saraakiishiisa dhinaca militariga waxa ay soo bandhigeen markii ugu horeysay kuna dhawaaqeen qalab military oo casri ah oo Iran ay horumar ka gaadhay markii ugu horeysay. waxaana kamid ah diyaarado dagaal oo dalkaasi Iran ay sameysay oo kadib ay ku soo bandhigi doonto 22 bishan dhacdada military ay doonayso bandhiga military ay doonayso inay ka dhacdo magaalada Tehran fagarayaashada waaweyn. Iran ayaa waxay sheegtay in horumarinta gantaalaha
horumarinta diyaaradaha iyo horumarinta maraakiib dagaal oo toddobaadkan oo dhan dabrid ku sameeyay gacanka Hormuz dhamaantood hadda farta laga wada gooyay waxaana ay sheegeen inay gaadhay horumar ku saabsan isku filaansho dhinaca hub soo saarista ah iyo waliba gantaalada waaweyn diyaaradan cusub ee ah nooca dagaalka ee dalkaasi Iran lagu hagaajiyay ayaa noqonaysa abid diyaaradii ugu horeysay ee Iraniyiintu ay sameystaan ee ah diyaarad aan ahayn kuwa droniska ah iyadoo horey ay Iran hodan uga ahayd inay soo saarto diyaaradahan cudwadin balse haatan ay tahay diyaarad xoogan oo isugu jirta baa leeyahay diyaarado gantaalo waaweyn tuuri karta iyo kuwa ciidamada daabuli karta waxaana loo bixiyay qaxar 313 dawladda Iran waxay intaasi ku dartay in ay xoojinayso militarigeeda gaar ahaan waxay sheegeen in qalabka militariga haatan ay soo saartay iyo gantaalaha casriga ah ee diyaaradda ka dhici doona dhamaantood yihiin kuwa dhulka gudihiisa ama dalkooda hooyo lagu sameeyay sida ay warka qoraalka ay ku sheegeen saraakiisha sarsare ee dalkaasi Iran taliyaha ciidanka cirka ee dalkaasi Iran General Amir Hatami ayaa wuxuu u sheegay wakaalada wararka Fars in dalkiisu uu gaaray waxa uu ugu yeeray horumar bilow ah isla markaana ay haatan iyo wixii ka dambeeyay kor u qaadi doonaan isku filaanshaha dhinaca awoodda military dhan kasta bay noqotaba wuxuu sheegay in hay'adda qaranka ee loo yaqaan NDI ay soo bandhigi doonto qalabkaasi marka la gaaro buuri maalinta loo yaqaano maalinta difaaca qaranka oo ku beegan 22 bisha Agoosto oo halkaasi ay qalabka military ee dawladda soo saartay ay ku jiraan diyaaradu lagu soo bandhigi doono wuxuu intaas ku daray in dalkiisu uusan cidnaba uga gambad doonin buuri in aan xoojino buuri qalabka military dhanka kalena taliyaha ciidanka badda ee dalkaasi Iran oo la yiraahdo asagana Admiral Hussein Khansadi ayaa wuxuu sheegay in dabridkii ku soo gabagaboobay gacanka Hormuz iyo badda gacanka Persianka uu ku soo dhamaaday wuxuu ugu yeeray guul lagana soo falaxashay ayuu yiri in fariin loo diro cadow kasta oo ku tooqa in uu Iran talaabo ka qaadayo ay ku jirto wali Israa'iil iyo Mareykanku wuxuuna sheegay in dabridkaasi lagu soo bandhigay gantaalo culus oo dhulka badda hoosteeda mara iyo maraakiib dagaal oo ah kuwa gujis isugu jira kuwa markaasi ay ka daataan ciidamada iyo qalabka military General Khansadi wuxuu ka digay in dalka si Iran uu ku jiro wuxuu ugu yeeray difaacul nafsi khasab ku ah inay iska celiyaan wuxuu ugu yeeray cid kasta oo ku soo wuxuu yiri daqiiqanta wuxuuna sheegay in dalkiisu uu diyaariyay in heegan la geliyo dhamaan ciidamada loo yaqaan ilaalada kacaanka islaamiga wuxuu sheegay sidoo kale in dhawaan Iran ay horumari doonto ciidamada ama xoojin doonto ciidamada badda ka jooga oo horey uu ahaa kuwa kooban balse kor loo qaadi doono dalka Iran ayaa sidoo kale waxay warka qoraalka ay soo saartay wasaaradda difaaca ay ku sheegtay in kasta koow diyaaradahan iyo gantaalada ku saabsan casriga ah ee ku saabsan baa la yiri horumarinta la horumari doono baa la yiri sidoo kale ciidamada badda iyo ciidamada cirka kor loo qaadi doono waxaana la aaminsan yahay in Israa'iil ay mar walba kaga horeyso dalalka kale bariga dhexe xagga cirka taasoo haatan Iran ka dhigaysa inay tartan xoogan dhinacaas ay ka gashay Israa'iil ayaa isugu yeedha inay yihiin dalka ugu ballaaran ee ciidanka cirka leh kolka ay timaado wadamada bariga dhexe ku yaala waxayna haysataa oo mar walba heshaa qalabka iyo diyaaradaha ugu dambeeyay ee dalka Mareykanka lagu soo hagaajiyo iyo waliba qalabka military in nooc walba waana dalka kaliya bariga dhexe ku yaala ee lagu hubo inuu hub nuclear uu haysto oo ah hubka sida weyn xuguma wada shaqeynaa qaybta labaad iyo warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda goordhow iyo daqiiqadaha soo socda